thief and theft. Today, I'm going to summarize and teach you the differences between these two words. waxaan rabaa inaan ku baro farqiyada u dhexeeya labadan eray. Erayga thief oo macnihiisu yahay tuuga, iyo erayga theft oo macnihiisu yahay tuuganimadii. Erayga thief waa magac oo loo yaqaano common noun, magaca guud. maadaama tuuga meel walba laga heli karo, waa magaca guud. ahna qof caadi oo la taaban karo, magaca guud baa loo yaqaanaa. tusaale, he is a thief, isagu waa tuug. waxaa inoogu xiga erayga theft la yidhaa. kani waa magac, waa tuuganimadii. theft waa maxay? waa tuuganimo. isaguna waa magac oo loo yaqaano abstract noun, oo ah magaca daasanaba qarsoon. horaan uga soo hadalnay magaca daasanaba qarsoon inuu yahay wax aan la taaban karin, lana arki karin, balse la dareemi karo inuu jiro waxaa loo yaqaano magaca daasoon amaba qarsoon. sidaa darteed keen tuuganimo lama dhigi karo, waxaan la taaban karin balse un la dareemi karo inuu jiro waxa loo yaqaano tuuganimo. tusaale, tuuganimada jooji. Stop the theft.